meeshaan rabno hanaankii dowladnimo dabada hilinkii la qaad hormuud bay dunida tahay Somaliland horumarto haysatay meeshaan rabno hanaankii dowladnimo dabada hilinkii la qaad hormuud bay dunida tahay loogu soo dhaweeyay fanaanka caanka ee dalmaryare soo dhaweynta fanaanka ayaa waxa ka qayb qaatay fanaaniinta abwaaniinta muusikshaanada iyo waliba taageerayaasha fanaanka dalmaryare ayaa markii uu ka soo degay Cigaal International Airport waxa uu kelmad mahadnaqa ka yiri goobta soo dhaweynta ay ku sugayaan bulshada soo dhaweysay aad baan u dhawahay ugu horeyn fanaaniintayda abwaaniintayda shacabkayga ciidaydii hooyo oo xuduntayda ku aasan tahay inaan caawa soo caga dhigto waxaan ku qiyaas ma garan karo runtii aad baan u faraxsanahay dhammaan dadka aan jecelahay dadka walaalahay ah oo intaas aan hawada ka wada soconay waxaan idin leeyahay abaalkiina ma gudi karo aad baad u mahadsantihiin intaan idinka filayay in ka badan baad sameyseen waan idinka filayaa waan idin jecelahay reer Somaliland reer Hargeysa madaxdiisa arintiin thank you wallahi wax badan baan ku tamaniyay oon lahaa markuu fanaan soo dagaba haddaan baala leeyahay bari soo ma duulaan sidoo kale waxa ka hadlay gudoomiyaha xidigaha geeska Maxamed Bakaal Ciro Cabdiraxmaan Oday afayeenka xidigaha geeska Cabdiraxmaan Xaaji Yurub Geeyo Ifraa Hargeysa Nimca Degan Daha Cabdigaas Bulshaawi Cadceed dhammaantoodna waxay hadaladoodii kamid ahaa sidan way faanto dhan baa joogta kooxii Somaliland oo dhan baa jooga waxaan leeyahay walaalkay dalmar horta markii hore waxaan haystay aad u dheer waxay ma dheeran yar biiga dheer yahay waxaan leeyahay soo dhaw walaalkay fanaaniintaadii iyo shacabkaagii oo ku heelan iyo waddankaagii ku soo dhaw baan leeyahay bismillah maanta waxaan soo dhaweynaynaa walaalkay fanaankeenii aynu jeclayn ee codka macaana talentka ahaa fanaanun daafka dadku way ka wada yihiin waa la sii kala fanaansan dalmaryare dalmar maxamed cali waan soo dhaweynaa Hargeysa lagu soo dhaweynayay hooygii fanka iyo fanaaniintii aanu kala harin fanaan Hargeysa ka maqan maanta ma jiro airport Hargeysa ninkan waxaan ka yaabay habeenkii xalay ahaa ma naan seexan horta reer America shacab iyo fanaaniin cid walba soo lahaayeen dalmar bari marka waxaan leeyahay dalmar fanaaniinta marka laga tago shacabkii baan ka seexan weyn reer America aniga waa walaalkay dalmar mar waa saaxiibkay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow fanaankeenna dalmaryare inkastoo jecelayn Hargeysa dalmaryare ay kaga bedelno dalmar weyne dheere waxu ugu bedelno marka walaalkay soo dhawow baan leenahay aad baad mahadsantihiin waa maalin intaas oo dhan iyo in kale oo haatan jidka ku soo jirta oo intii habsaantay macaa ay u soo kacday in ay soo dhaweyso walaalkeen dalmar baanu maanta soo dhaweynaynaa oo ay magaca uu ka bedelay maanta oo dalmar weyne aan u bixinay oday waxaan leenahay dalmarow in badan baad Somaliland u heestay in badan baad u qirootay in badan baad waanu ku ognay waxaan maanta bacadka u taaganahay Somaliland ahaan ugu dambeyntii waxay hadallo dardaarana u soo jeediyeen xukuumadda Somaliland oo ay ka codsadeen in bandhiga uu dhiganayo fanaanku lagu tixgeliyo isla markaana qayb weyn uu ka qaatay qarannimada Somaliland isagoo kaga hadlaya kaalmaha heesaha waxaanu leenahay in kastoo aad maqashay 12 habeenimo barka la xidhaa dawladda waan la hadlaynaa waxaan leenahay ma xiri kartaa haddana wax kale na tarayn ninka ayaa waaga waan u heesaynaa haddana wax kale tarayn ha imika waxa naga handaraabina ninka xafladiisa Somaliland buu heestay waxbuu gashaday oo nooca dalmar ayaa markii ugu horeysay uu soo caga dhigto